السلام عليكم kusoo dhawaada janalka Amina Cooking and Henna maanta waxaan sameeynaa doolshada bafta insha Allah intaana u jeedinaan ka sameey doonaa 4 xabo ukun baking powder vanilla waxaan ka isticmaalaa insha Allah iyo sokor bur iyo biyo wax yariis waa doolshiro easy oo fudud insha Allah waa kaasa ila fiirsada insha Allah intaana isku soo dardara ukuntaan ku soo shubana qayb waa idin tusi doonaa ila socod insha Allah aniga leena kaamiradi isku haayo hadii lacag igu adkaato markaan mashiinta ku shiidaayo insha Allah markaas waa daminaa insha Allah ila socda ukuntii aan ku soo shubay 4 xabo ukun ku daraa biyo wax yariis aan ku daraa insha Allah ila socda biyo intaas loo baahan yahay waxaan ku daraa vanilla iyo baking powder waxaan ku daraa baking powder aan ku daraa baking powder iyo vanilla hadan ku soo daraa qaando oo vanilla wax yar oo heelka shiidan aan ku soo daray wax yariis insha Allah ma idin tusin marka waan iska hilmaamay waa ka saahay markaan ku daraan soo xasuustay hay intaan isku qasaa burkan ku daraa marka baaquli waa soo buuxsamay muujeedin ma sha Allah safi ana hadana mashiinka ugu soo qasay burka wax yar ugu daraa marka burka bakeerigaas ma ku daraa insha Allah wax yar ugu daraa insha Allah waan soo dhameeyay burka kaas intaas aan ka reebay inta kale qayb yar aan ugu dar insha Allah qaybta siristan ka soo reebay bakeeriga waa kana waan soo dhameeyay ma sha Allah waxaan sameeynaa marka saxankii aan furan ku shuba lahayn insha Allah soo diyaarsana oo ii diyaarsan yahay oo ku shuba insha Allah la socdo ما شاء الله واكنا صحن كاني فرنك واكسو شبا
بسم الله. بس واي واكنا إن شاء الله waan ku shubay saliid yar iyo bur yar hore u soo mariyay maasha Allah saxanka furanka hore ka gelinaa markay ka soo bixiyeen waa idin tusaa insha Allah sidee noogu soo baxday.